waxaan ku xigsiinayaa haddii liidmaayo xisbi gudoomiyaha xisbiga kulmiya axmed maxamed siileye بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وراليان كنت شرف أيت إلى ما تحفظ من هيك وحكى إلى هذا قربنا ومنهم سن برنامج كحزب الكلية يأرتيها قاركود قبله. أنت ما كوي إنسان واحد من شيء يوم أنت هذا السود دليل دور قطع أفكار يسوي مودن والدنيا يقولون بان الكروان يرشى كسن أفكار مسير دليل واحد من يسوون مثلاً بعضهم يهاي شرتون هديار ماشى نبارنه إلى مسقط رحمه تريد كأنه بدنا باش بدت واحد شعريين تذكر خلافك إيه بلاتر إيه واحد بشعر لكن تبرك قاركو هدول كل جوش وطن الله وأين محكر الدور ورم وأنتي إدي كرا أي تناعض واحد بدل ما يقرأ واحد من السيستم كان يقاضي الديمقراطية أحزاب تبدل واحد من دقروا هاي المرة واحد دقروا هاي المرة دوني كان سبيستير وكذا يعني دوني أي سبيستير كذا يعني وهاو تلقي إن إدى هوش هيسا إدى كلمة كل العالم هيسو قرادات كانت تلبابة كرتو وحي كبدي من تاي شيء كرتو مركا حدي ليش هاد اللي معلومة لحدانو أنا بيو فيصل اللي انت هيرو حوالي لحنو وحوالي ميرو كورسان مركا حدي هلكا حسوق قران دي هكتا واساسا كو إغانيسان بدأ لبا مركا مخاو هلكا هم يريدو هميين مركا سيبو بو حضيو دمتا ودن كلاغا حضيو دمتا قارن كلاغا حضيو وحي اسكو دي دابا ويسكيلك تايبا إذا تعلمت أنا ورمر أنا ما ورمرته تعلمت أنا ورمر أنا حافظات أنا ورمر أنا استقلال باب كلمة قرق وصوص عرنا هذاك يدك ضبط وسكت لنا وحضور عدنا وحضور مديرين أنت وكل شيء قل عن برنامج كل واحد يقول وحنا ستاوي من وأنا بقول أنا بتكلم عن بالبيسة هذا في سكتور تجربتي ولا رأي صبر فرح تقولي إنك إنجليز كلا يروح على كلا جرام البرنامج كلا يقدر كيو هي كيكو سيرفتيفك وسكون بتقول كيكو سيرفتيفك واحد راح ده يقدر تبصوا عليه برنامج كيدو فلسفة دي وطبعا كيس كلا كلا جرام اللي يدلو كاتسكي واضح ذلك اللي بدكم مشاكل بين كور هالليان بيان بين كور هالليان بركع إنه يدوسه إلى تروح معه تاك خبرنا معنى كبت شروه الدنيا الناس هو معنى وقت كذا هو صح تعليمتها روح خبرنا عافماتها روح خبرنا إذا ما دار كور قادنا يدون كبر كأننا جلسنا كأننا بدل بقاتنا كل قدر معانتي بركع وحاس عندنا كنت وحفي يغنى برنامج كله وقرنتها أنا أنكر أجر والله موضوع يحكي الدور من نقول ليش مركب برنامج كده لا وحن قاسم بقرار التنفع الشركة العربية سيرة الدنيا كاس وأخوه أكيد دكتور
marka waxay la tahay inaan taa waxba kala noqon waanan meesha wax ka yar duwan aanu la nidaamnaa barnaamij xisbiga markaanu abuuranay iyo ujeedadiisa waa kuwa waa dalka horumarinteeda waa ictiraafkooda wakaa iyagu weeyaan qofkii doonaya mufaraqu uu akhrisan karaa marka waxaan doonayaa presentationkayga maanta inaan kaa ka yara baydo oo halkaa ka oran lahaa mid walba waxaasaanu ka qabanaynaa inay ka yardooninaan doonaya waxaan kaga duwanaanayaa qodobo gaaraan doonaya la taabto waxyaaba imanka aan arko inay jidkeedii haysan waan leedahay kaa annagu waxaa ka duwan baanu sidaa ka yeelinaa xaggaanu kaga duwanaanayna baada aan kuwa qorobada toos wuxuu ka taataabto marka ugu horeysa horta doorashooyinka soo socda qolada way u diyaar garoobeysaa waxaan ka baqay inay fikradda naga xadaan laakiin yeelkeeda iska oranay waxweeye qolada walaalaha iyagaa waxaanu qabnaa weliba xisbi alxaakimka ah sidaanu warka ku haynin iyagu qolooyin imika u badan weliba meesha ku jira oo ugu badiya dadka meesha jira xisbiga lagama soo dooran waxba kaga tiigaanmaya sababta ugu yihiin iyaga idinku soo celinaynaa bay yidhahdaan iyagu annagu waxaanu doonaynaa doorashadaa soo socda inaanu dadka dad iimaan leh oo aqoon leh oo cilmi leh oo aan dowladdu hadday taayara tahay iyo hadday xaakimka maanta jooganta hadday mid kale toona tahay aan la iibsan karin oo xul ah oo dalka iyo dadka waxu tari kara oo dalka iimaansan inaanu soo saarno ayaan doonaya runtiina waa naga dhab horta taas waa qodob aanu doonaya inaan ku tala jiro ujeeddadanu kalena waa maxay marar badan baa waxaa la yidhahdaa waa naga qolada xukuumadda isaahayna qaar badan baa waa naxriyataan iyo waxba inqilaabaysaan iyo waxba qiimaysaan iyo waxba xuminaysaan bay naga yidhahda inqilaabna kuma jiro xumaanna kuma jiro sharci jabina kuma jiro erid kalena kuma jiro waxaanu doonaynaa dadka golahaa soo gelaya golaha noqonaya baarlamaanka inay yihiin qaar dowladda la xisaabtami kara oo aan la iibsan karin oo aan la khaldi karin oo sharciga iyo dastuurka waxa uu farayo iyo xaqa ummaddiisa waajibkeeda guri karay noqdaan baan doonana xulasaan ku wataa midda waxaanu annagu baabi'inaynaa sharciga la yidhaahdo emergency laws sharcigan xukunka degdega ah ee siyaad barre waqtigiisii isticmaali jiray oo aan meel ku lahayn dastuurkeenna meel kuma laha dastuurkeenna waxaa ku taala qof aan maxkamadu xukumin looma diri karo xabsiga ayaa ku taala sharciga dastuurkeenna ku taala boqolkiiba 80 dambeyto guddi baarlamaanka ka mida guddiga bulshada iyo guddiga cadaaladda iyo qaar layaa qaarba daraasad soo sameeyeen waxay soo caddeeyeen soo muujiyeen in dadka ugu badan ee maanta xabsiyada ku xiga bikaargeyska buuxaa inuu yahay guddi ay xidheen aan maxkamad xukumin guddi wasiira daakhilku ka waxay xidhay 2 sano 3 sano 4 sano 6 bilood 7 bilood waqtii guddi nabadgelyada leeyahay maadaama aan fogeyn walaalada uga baqaad kacayaan muddo aan sii fogeyn annaga iyo xisbiga aan walaalanahay mucaaradkii waxaan weerajin ugu qoray maxkamadda sare kal hore in meesha sigooda la baabiyo ee baalkaa lagu xukumayo annaga weerajin ugu qoray sanad baybeed haystaan maxkamaddii sare waxa waxay ka qabatay ma jirto haba dhowto oo la wabsanayay gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu qoray oo tv-ga ka qaray oo jaraad ku soo baxay kolay ku aragteen baa laga yaabay sharciga socodsiintiisu waa غير dastuuri haddana maxkamadda tallaabo kama yihin kama qaadina loola taala horta annagu baalka maafiintiisa ayaan soo jeedinay
وغير الدستور ويكون غير الدستور. حدك لما بنك إلى واحد لما بنك بدنا واحد كوميرشال بنك في الصومال بدنا سنترال بنك لما بنك واحد ولم يبان يشري وقت السيادة يشري بدخل في كعب كبحي ولا تشوف إلى حاجة دكتور سيادة هو يقدر وأي أرجع كده سيء إلى ما أنت إلا أحد يتعامل جستوى الدولة دهية حزب سنترال بانك بانك سنترال بانك لما باقين كرا لكن وإيش قبل السيد بتاعي هاد إنه ما ترجع العقد الدرعات اللي هولد اللي أنت هو قبضة العشرة ومش هالمدينة كم كرا أو سكفر ده وحلا قبضة لأنه كوار باقين هنا ويخلق قبضة waxaanu sida dastuurka dulmi caddaynayay soo saarayna oo aanu fulinayna baanan private sida sharciga guriga ayaa u sameeyay waxa kale ma jira hay'ado badan oo qaran ku leeyahay waana cid aan la xisaabtantaa jirin waxaa ka mid ah banka dhaxal mukaabiya banka ka mid ah weli ma aragteen annual report iyo return of accounts iyo soo saaray weli aragteen ma aragteen saama jirto ma aragtaan horta marka kaasaa joogay waxaanu kaana u sameynaa central bankaasi markuu jiro board of directors baanu sameynaa inuu lahaado sida guuda ugu dhaqanto ilaaliya ka warqaba la xisaabtama howladu sharci ku socdo waxaa kala jira hay'ado badan oo kaloo qaran ku leeyahay waxaa ka mid ah dekada berbera waxaa ka mid ah meelihii kale dhowr muhiima sida wakaalada biyaha waxaa ka mid ah kuwa dhalka waxaa ka mid ah kuwa noocaas haddaan kuwa aan private iyo joint ownership la samaynaynin oo kuwa private kan loo ogolaanaynin waxaa khasab waxa weeye iyagana waxaan u samaynaynaa muxuu ahay waxaasoo dhaweyna board of directors waxaa kaloo baabaynaa jariidada mandaq waa baabaynayna jariidaka waxa la waxay tartaa ayda mucaaradka mooyaan wax kale ka harfay lacagtii uma duro way ku baxdaa geedkaana badgaado dadkuna ma akhristee boqolkiiba 9 koobiyaashana waa la celiyaa waxaa ka afdheer oo aragteen oo akhrisataan marnaa maanta akhrisataan oo akhrisataan hatif iyo jamhuuriya akhrisataan iyo kuwa kale cusub ee soo baxayo iyadoo xoolada iyo baashoodataan war baabeynana orabina war baabina reeriga qaranka ma baabeynayno laakiin waxaan u samaynaynaa inuu independent noqdo waa inuu loo sameeyo sida BBC waanu wasiirka informationka toos amarka u siinin ay noqoto inuu gooni oo madax bannaan u yahay oo markaa noqon karan qaran arrimaha caynkaas ah ayaa kuwa aan fulinna ka mid waxaa ka mid ah xagga xagga maasmeeyaha iyo xagga baanka xagga siyaasadda dibadda runtii markaan u hadlo waa dacwada siyaasadda dibadda hawl fara badan ayaa ibna aadan ka qabatay waa in sharafteeda gooniheeda la siiyo laakiin halkaa waxaan leedahay runtii wareegada meel baa wax looga dhiman yihiin oo aan saaxiibadeedna adigula tan laga soo jeedin lahaa aanani looga soo jeedin lahaa waxa weeye caalamka waxaynu ka go-annahay waa inuu xiriir wanaagsan leedahay caalam alislaami walcarabi waa inu ku jiro wax xiriirahoo caynkaasa sida meela kale uga howlgalo ugalamaha u kalo halkaa bal falsafadeeda sida loo heli lahaa waana meelaha laynaga haysteen maanta istiqlaal iyo madax banaanidaynu doonaynaa meelaha laynaga haysto waana ilaha ugu muhiimsan halkaa waxaanu ka soo jeedinayna anagoo leenahay haddaanu cid kale weyno cidnaanu hoos keeni lahay muxuu ahay
qof kale oo isla af carabiga aad u yaqaano sheekhiina wacdii shalatay waxaa weeye gobolka bari beenyaynaan isu sheegin dalkeenu iyo dadkeenu wada jir baynu ka hadlaa isu imaanta baynu ka wada hadlaa dal wada jiraynu ka wada hadlaa waxaynu u baahannahay inaynu siyaasad cad oo adag la nimaadno sidii aynu bari gobolada sool iyo sanaag u soo gacan gelin lahayna qaab nabadgelyo ugu soo gacan gelin lahayna nubaha u gelya baynu baahna halkaana waxaynu daahin wax badan ay nagala ay dhiban yihiin oo weliba arrintaas ay noqoto mid heer dadweyne iyo madax dhaqameed iyo waxa qaabkii aynu isku afkaran jirnay ay ku socoto marka قربنا كذا والله ده واحد ده مخلص يدار ما حتى قربنا نسيب الوقت يقولون يسنا بدون إنه يسنا كذا واحد كده مثلا إذا ما أبغى كذا إذا ما كان هو قوي بكل سنة وقوي اشتركت القيمين ده قربنا بين الكل على منه إذا وقت لا يشوفون عبد الله يوسف كل يسوي له الدرجات يسوي له يقول أنا كنت ما أعرف لا مكانه تبزق تمسك واضح لذلك هل كان هو برضه يوضح يبينه ك هذا بيقول انه يحكوا لي عشان هو هذا سؤال كيف يقول